بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay kitaabu alcataaya wasadaqaati walxubsi ama xabsi labadaba waa dhihi kartaa xubus marka sadaqaadkii baan si gaara u soo bilownay qaala shaaficiyu wa banuu haashim wa banu lmuطalib muxaramu calayhim asadaqaat almafruudaat wuxuu ka hadlayaa maadaama waxa laga hadlaya ay sadaqo tahay sadaqada labay u kala qaybsantaa mid tatawuci ah iyo mid fardi ah oo zaka ah marka wuxuu iri wa banuu haashim waa qolada nebiga uu ka dhashay wa banulmuطalib waa reer bani cabdilmuطalib oo shaafici ka dhashay muxaramu calayhim waxaa laga xarimay asadaqaatu almafruudaat nebigu wuxuu iri annaga haddaan nahay aala albeyt laa taxilu lana sadaqatu marka wuxuu ku celiyay liannaha awsaaqu nnaas liannahu sadaqadas ilaahay yuri sadaqatan tutahiruhum wa tusakiihim biha sadaqada waxaa weeyaan qofka baa lagu tahiraa oo dunuubtiisa iyo wixii baa loogu dhaafaa marka nasabka nebiga calayhi salaatu wassalaam waa silsila taahira marka wax dad ay isku soo tahireen inay dib ayay isugu soo celiyaan ma banaano walidaalika khumusulkhumus bay wax ku leeyihiin laakiin sadaqada wax kuma laha sadaqada midda faradka ah hadalka ma joogo waataada musanifka uu sheego asadaqaatu almafruudaatu marka qolo kalaa jirto oo reer bani cabdishamsin iyo oo ay nebiga iyo reer banu cabdilmuطalib ay kulligood wada siman yihiin oy meel isaga soo dhacaan banulmuطalib maxaa gooni loogu bixiyey liannahum lam yufaariquu bani haashim laa fi saraa walaa fi daraa xataa markii carabtii ay go-doomisay mushrikiintii oo shicbigii la yaqiinay ay 3 sano ku xeraysnaayeen reer banu cabdilmuطalib kama ay nahan reer bani haashim ay la jireen markii nebiga la weydiiyo liri annaga iyo reer banu muطalib qolada cuhmaan ibni cafaan uu ka dhashay waxay yidhahdeen isku hal shay baan nahaye oo meel baan ka wada nimaadaaye maxaa annaga gooni noola bixi oo ayaga wax looga siiyey khumuska markaasuu nebigu wuxuu iri banuu haashim banulmuطalib shay-un waaxid warcad buu ahaa meesha nasab mujaradkeeda ma aha mawaaqif aa laga hadlaya marka sideedaba towfiiq min allahi maalmaha ka mid ayaa mowqif aad istaagaysaa qad takuunu bihi shariifan ilaa qiyaami saaca marka dadkii ajdaadkoodii a mowqifkaas fiican qaatay sadaqada tatawuca ah sida oo kale nebiga calayh salaatu salaam maa kaana yaqbal inkastoo mafruudaadka aan khilaaf ka joogin sadaqada kale nebiga ma aqbali jirin lianna bihaa manan waxaa qofkii waa lagu galladaysanaya sidaasayna u bannaanayn nebiga ina cid walidaalika kaana yaqbalu lhadiya wayaruddu sadaqa wiilkiisa oo awowga u yahay oo xasan ah markuu timirtii dhulka ka qaatay uu nebiga ka yiri markaasaa layiri uu yiri nebiga waxaan ka cabsanayaa inay sadaqa inay tahay marka sidaa daraaddeed baa nebiga calayh salaatu wassalaam nasabkiisa shariifka loogaga ilaaliyay awsaakh annaas qaala shaaficiyu walaqad xafidna sadaqaati can cadadin kathiiri min almuhaajiriin waalansaar sadaqadii hadda noogu dambeysay oo waqafka ahayd waa nooc min asadaqa waxaan ka xafidnay buu iri dad badan inay sameeyeen oo muhaajiriinta ansaarka waxa waaye waa maadatu asxaabi rasuulillahi dadka ugu badan waa labadaas walaqad xakaa lii cadadun dad badan wuxuu iiga sheekeeyey min awlaadihim wa ahaalihim shaafici ansaarta ma gaarin muhaajiriinna waqtigeeda ma uusan joogin laakiin dadkii ayaga ay dhaleen oo ka farcamay oo jiili thalith raabic ahaa
waxay iiga sheegeen buu yiri annahum kaanuu yatawallawnahaa xataa maatuu inay gacanta ku haayeen waqafkoodii awowyaalkooda waxay waqfeen dadkii ayaga ay ka dhasheen ama ayaga ka dhashay baa gacanta ku haa jiray waa sadaqo ayaga ma qaada jirin laakiin dadka oo lagu sadaqaysta ayagaa u maaran jiray ayib maxuu iri markaa tanqulu dalika alcaamatu minhum can alcaamati laa yakhtalifuuna fiih waxa weeyaan tanqulu dalika alcaamatu minhum dadkooda badan sidaasuu kasoo naqlinayeen can alcaama macnaha waxa weeyaan qolobo qolay ka soo qaadaysay walaa yakhtalifuuna fiihi ninka waqafka iska leh inuu asiga maarayn karo iskuma ayna khilaafsaneen buu iri qaala shaaficiyu wuxuu uri wa ina akhara maa cindana bilmadiinati wa maka min asadaqaati la calaa maa wasaftu wa ina akhara maa cindanaa waxa annaga aan intaan hayno inta ugu badan oo bilmadiinati wa maka aan ku hayno min asadaqaati la calaa maa wasaftu awqaafta taale maka iyo madiino sidii aan kuu sheegay baa loo maareeyaa oo dadkeedii waqfay ilmihii ka dhashaa maareeya lam yazal man tasadaqa biha min almuslimiina min asalafi yatawallawnahaa xataa maatuu lam yazal kama suulin man tasadaqa bihaa ninka sadaqaystay oo min almuslimiina kamid oo min asalafi kasii mid ah yatawallawnahaa inay ayaga ay gacanta ku hayaan xataa maatuu wa ina naqla alxadiidi fi dalika katakalufi wuxuu leeyahay dadkii oo maxaan ku iraahdaa bahasha maareynteeda awqaafta in dadkii waqfay iyo dadkii ayaga ka farcama inay gacanta ku haayaan waxa weeyaan waa midka hadda maanta aan indheheena ku aragno maka iyo madiina yaallo kow markaasuu uri in la raadiyo yaa laga wariye fulaan fulaan la yidhaahdo ka takalluf waxay lamid tahay yacni in waxa aan loo baahnayn ood isku dhibaysid inay tahay bimacnaa waxa weeyaan shay mashhuur oo mustafiid ah haddaan ku weydiiyo yaa laga wariye yaasa arrintaas sameeye haddaan ku iraahdo waxay lamid tahay wax iska muuqdoo laysku kalifay haddaan ku weydiiyo in ku iraahdo qoraxda itusi oo ay cadceed inay horta korkeyna taagan tahay takalluf waaye sidaas oo kale wax mashhuur oo la wada yaqaano dadkoo dhan ay wada ogyihiin haddaan ku iraahdo yaa laga wariye fulaan iyo magacaaw waxa weeyaan takalluf waa buuri macnaha waa shay mashhuur macmuul bih qaala wuxuu iri waxtaja muxtajun bixadiidi shurayx ana muxamada jaaa biiطlaaqi اlxubusi xadiidka shurayx waa imaan doonaa wuxuu iri haddii qof culamada kamid ou xujaysto ana muxamadan oo nabiga lagala jeedo jaaa inuu la yimido biiطlaaqi اlxubusi awqaafta in la sii daayo oo wixii la waqfay waqfnimadii laga bixiyo haddii qof intuu daliishto u yiraahdo waqaf ma banaano uu yiraahdo faqaala الshaaficiyu marka jawaabta uu siina waxa waaye alxubus aladii jaaa biiطlaaqihi waqafka nebiga uu u yimiday in laga bixiyo dariiqadiisa low kaana xadiiثuka haabitan haddiiba aan ka soo qaadno inuu shurayx hadalkaas ka sugan yahay kaana wuxuu ahaanayaa xubuskaas waxaa lagala jeedaa calaa maa kaanat alcarabu carabta waxay samayn jirtay taxbisu ay xabisi jirtay oo min albaxiirati waalwasiilati waalxaamia liannahaa kaanat axbaasahum awqaafteeda waxaasay u yaqiineen carabtii oo jaahiliyada ahayd waxay waqaf u yaqiineen albaxiiratu waalwasiilatu waalxaam maa jacala allahu min baxiirati walaa saa'ibati walaa wasiilati walaa xaamin walaakina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadib waxa weeyaan nebiga miduu diiday oo inuu yiraahdo waqfigaas ma soconayo mana jira ha laga noqdo uu yiri waa dhaqankii xumaa
ay carabta ay si gooni u lahayd oo ahaa taxbisu min albaxiirati baxiirada waxaa weeyaan neef baa ama intaasoo dhalmow ugu dambeeyaa ama intaasoo dhalay inta la yiraahdo dhagta laga jeexo la sii daynaa leeh lama isticmaali karo waqaf waaye asnaamta iyo jinniga iska leh walwasiila wasiilada waxaa weeyaan shaatada ama baqarada ama naaqada markay intaasoo dhalmo isku daba xariiriso 12 dhalmo oo weli dhidig ah markay dhasho yaa laleeyahay khalaas waa xorowday markaan waqafay noqoto cid ka taabanaysa ma leh walaa xaamin ritiga weyn in la ilaaliyo dhabarkiisa xaamin bimacnaa annahu yuxmaa dahruhu min alrukuubi wa xamli alathqaali calayh markii intaas soo da ay ka farcanto ritigan ama dibigan ama orgigan aa laleeyahay khalaas waa isxoreeyey marka nebiga kuwaas wuxuu wax soconaya ma aha ilaahayna waa diiday diin ma aha waa iftiraac cala allah marka taasaa loo jeedaa haddiiba xadiidka shureyx uu jiro oo xabsigii waqafkii jiri jiray ha laga noqdo ou leeyahy kaasuu u jeedaa buuri liannahaa ay haadihi alashyaa athalaatha kaanat axbaasahum awqaafteeda bay ahayd laa naclamu jaahiliyan ma naqaana buuri xabasa daaran daar waqfay calaa waladin ku waqfay walaa fii sabiili illaahi ku waqfay walaa calaa masaakiin waqafkan sharciga ah oo nebiga jideeye nin jaahiliyo sameey ma naqaana buuri nin yiraahda daartan tan dadka duyuufta iskale daartan tan caruurtayda caruurta dhaleena iskale nin yiraahdo ma aanan aqoonin marka waqafkan sharci nebiga uu keenay waa mid jiray oo nebiga u yimid oo isaga bedelay ma aha wa ajaaza rasuulu llaahi wuxuu u baneeyey licumar alxabsa calaa maa rawaynaa cumar inuu waqfi sameeyana nebiga waa u baneeyey waaladii jaaa biiطlaaqihi nebiga waqafka ha laga noqdo uu yiri gayru اlxabsi aladii ajaazahu waqafka nebiga uu baneeyey iyo midka ha laga noqdo u yiri waa laba kala duwan marka yaysan iska kaa dhexyaacin intaasaa loo jeeda qaala shaaficiyu واxtaja muxtaju bqowli shureyx laa xabsa can faraa'id illaahi uu yiri shureyx waa nin taabici ah nin baa ii daliishtay wuxuu iri laa xabsa can faraa'id illaahi haddii tiraa shaygan waa waqaf macnihi waxay ka dhigan tahay zaka kama waajibayso sadaqa kale lagama rabo wax saaran male macnihi saasay ka dhigan tahay marka shureyx hadalkiisa laa xabsa can faraa'id illaahi macnaha waxa weeyaan waqaf ma jiro oo gaarsiinaya zakadii inay maalka ku waajibto liannahu haddaad hadda xoola zaka ay ka waajibaysa aad tiraa kulligeeda waqaf waaye zakadii kama waajibayso marka waqafkii oo zakada mancinay ma banaano aa loo fahmay kalaamka oo shureyx jawaabka uu ka bixiyey shaafici qaale wuxuu iri walow jacala carasatan lahu masjidan an yakuunu xabsan can faraa'id illaahi buuri walow jacala carsatan meel bannaan hadduu ka yeelo oo lahu lishaksi masjidan hadduu ka yeelo an yakuunu xabsan can faraa'id illaahi ma tahay meel bannaan haddaad masjid u bedeshid meeshaas awal wixii ka bixi jira zakaa ka waajibi jirtay maanta waxba kama ayna waajibayn zakaad masjidaad u bedeshay marka zaka macnaha maka waajibaysaa faraa'id illaahi fakadalika maa akhraja min maalihi maalkiisa wuxuu ka bixiyana waa lamid falaysa bixabsin ma aha can faraa'id illaahi xoolahan aada gooni u lahayd oo awal ay zaka kugu waajibtay maanta haddaad milkigaada ka bixisidoo waqaf waa aad tiraahdid wax zaka oo kugu waajibaya ma leh sidii dhulkii awal cushurka laga bixi jiray haddii masjid loo bedelo oo aan ay zaka ka waajibaynin oo la lahayn masjidkan dhulka uu ku yaala faraa'id baa ku waajibi jiray
hadda maxay uga baxdaysaan loo lahayna kana aan loo lahayn buuri anigu hadda carasa hadduu beer dhihi lahay walow jacala masracatahu masjidan an yakuunu xabsan can faraa'id illaahi baa ka fiicnaan lahayd macnahana ku toosi lahay wallahu aclam qaala الshaaficiyu wayajuuzu اlxabsu fi الraqiiqi wاlmaashiyati idaa curifat bicayniha qiyaasa can الnakli wاdduuri wاlaradiina wayajuuzu اlxabsu baa bannaan waqf in laga dhigo fi raqiiqi buu ku bannaan yahay addoonkii walmaashiyati xoolihii idaa curifat bicayniha haddii la garto nin baa wuxuu leeyahay addooman ama xoolo buu leeyahay xoolahaygan wuxuu dhihi karaa waqafaan ka dhigay dadka masaakiinta ah ama طulaabulcilmigan ku waqfay marka ayagaasaa caanaha ka maalayo ayagaasaa hadday dhintaa hilibkooda cunayo ayagaasaa ka faa'iidaysanaya waqaf bay noqonayaan marka taa waxay daliis tahay bacda aqwaala waxay leeyihin shayga manquulaadka sida xayawaanaadka oo kale waqaf ma galaan waqaf caqaarka iyo dhulka iyo aageli kale dadaasaas qabaan tiibuu u jeedaa wuxuu leeyahay sida beeraha iyo dhulkaba loo waqfi karo yaa xayawaankana loo waqfi karaa idaa kaana yumkinu alintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi hadda neefkan arag waxa caanihii baa laga lisanayaa waa la fuulayaa oo dee dadkii baa ku guurayo asigana waa sii haray markaan waa la waqfi karaa buu leeyahay ayib qiyaasan cala annakli waadduuri waalaradiino ayagoo looga qiyaas qaadanaya in dhul iyo geedo in la waqfi kara khilaafka ma joogto marka waxa weeyaan qiyaasu makhtulifa fiihi calaa ma tufiqa calayh oo loogu qiyaas qaatayaa la yidhaahda ayib marka dadaa waxay leeyihin xayawaanaadka maya waxaa uu daliil ah layidhi xadiidkii nebiga uu yiriyey markii uu sakada laga hadlay wa amaa khaalidun faqad ixtasaba adraacahu wa actudahu fii sabiili illah khaalid ibn اlwaliid nabiga dadkii dacwada laga keenay ku jiray waxaa la yidhi fulaan iyo fulaan zaka ma bixiyaan aa la yidhi markaasuu yiri kaas iyo kaas waa sax laakiin fulaan oo khaalid ibn اlwaliid a waa dulminaysiin liannahu waxuu haysto oo dhan wuxuu ka dhigay waqf fii sabiili illah hubkiisa iyo fardihiisa jihaadkuu ku waqfay marka wax zaka ahoo ka waajibo oo laga qaata maba jirta buu nabiga calayh salaatu wasalaam yiri ayib marka warkaas waa sax weeyaan ayib faidaa qaala tasadaqtu bidaarii calىa qowmi aw calىa rajuli macruufi xayin yowma tasadaqa wa qaala sadaqaة muxaramaة aw qaala mawquufaة aw qaala sadaqaة musabala faqad kharajat milkihi walaa tacuudu miiraaثa abada inta wuxuu ka hadlayaa siiqaة اlwaqfi qofka marka shayga xoolihiisa waqf ay noqon karaan ilan waxaa la rabaa waqfka shuruudou leeyahy ninka waqfa waa loo fiirinayaa inuu kaamil tasaruf ahliya tasaruf inuu leeyahay in siiqada lwaqfi inuu la yimaado in jiha la yaqaano lagu waqfo shayga la waqfa inuu xalaal yahay shayga la waqfayo shay baaqi noqon karo asigana lagu intifaaci karo laakiin hadda kiila moos e waa waqfay ma dhihi karis liannahu laa yabqaa bacda aklihi laakiin sadaqo caadi buu galaa laakiin waqf ma ah marka siiqadii buu inta kaga hadlayaa ninkii hadduu yidhah tasadaqtu bidaarii calىa qowmin aan ku sadaqaystay aw calىa rajulin macruufin xayin ama nin la yaqaanoo nool yowma tasadaqa maalinka aad sadaqaysanaysay nin joogo oo markaa aan dhimanin wa qaala wuxuu yidhi sadaqaة muxarama ama sadaqatan muxarama waa hadba wixiid qadartid waa sadaqaة muxarama hadihi sadaqaة muxarama waa ama sadaqaة muxarama takunu sadaqaة muxarama wa qaala wuxuu yiri aw qaala wuxuu yiri mawquufatun ama waa sadaqa oo mawquufa ama waa sadaqa muxarama haddaad tirahdid macnaha waxa weeyaan sadaqa aniga aan milki karin ay ka dhigan tahay aw sadaqaة musabalatan uu yiri
sadaqa maxaan ku iraadaa nafcigeeda la bandhigay oo la baneey waayo. haddii intaas iyo wax lamid u isticmaalo musabala bimacnaa jucilat fi sabiili اllah faqad kharajat min milkihi bay ka baxday walaa tacuudu miiraathan abadan mar dambana u soo laaban maysoo laga dhaxli maayo. mar haddaad tiraahda beertan waa sadaqa muxarama ama waqf weeyaan ama maxaan ku iraahdaa musabala waa haddaad tiraahdo alfaad sariixa fi lwaqfi. alfaad kale waxaa jirta oo kinaayo ah oo xadba waxaad ula jeedid lagu weydiina laakiin tan sariix waay. taas waxa weeyaan siiqa min siyaqi اlwaqfi. inta hadda waxaa laga hadlaya walaa yajuuzu an yukhrijaha min milkihi ila ilaa maaliki manfacatin yowma yukhrijuhaa ilayhi. walaa yajuuzu ma banaano an yukhrijaha min milkihi inuu ka bixiyo ilaa ilaa maaliki manfacatin nin manfacada milkiyo inuu ku waqfo maahine yowma yukhrijuhaa ilayhi marka uu bixinayo shaygan waqafaan ka dhigay waxaanan ku waqfay ina sii raacisaal rabaa. sidii cumar uu yiri fi lfuqaraa wاlmasaakiin wاlaqaaribu fi sabiili اllahi waa cayimay dadka loo doonaya inay ka faa'iidaystaan. anta waqafta man huwa almawquufu calayhim inaad caddaysid waa طulaab اlcilmiyaan siiyey mujaahidiintaan siiyey fuqaradaan siiyey inaad wax magacaawdid waay. nin manfacadii hana karo maalinka aad waqfaysid qof wixii hana kara inaad yeyso. fain lam yusabilhaa calىa man bacdahum haddii uusan waqaf ka dhigin ayaga iyo wixii ka dambeeya ana waqaftu hadihi daara calى اlfuqaraa'i wa man bacdahum haddii uusan dhihin ee calى اlfuqaraa'i bas uu yiraahdo kaanat muxaramatan abadan bay noqonaysaa. lama dhahayo xoolahan wuxuu iri ana tasadaqtu ama awqaftu hadihi daar calىa fulaan uu yiri calىa fulaan uma calىa awlaadii min bacdihi ma dhihin calىa fulaan uu yiri keli ah iyuu ku gaabsaday. haddii saas ay noqoto waqafnimadii ka bixi mayso weligeed muxaramay noqonay. kow faida inqarada almutasadaqu biha calayhi midka daarta lagu sadaqaystay hadduu dhammaadane kaanat bixaalihaa abadan sideeday waqaf u ahaanaysaa. waradadnaaha waxaan u celinaa calىa aqrabi الnaasi dadka kan ugu dhow biladii tasadaqa bihaa ninkii oo sadaqaystay yowma tarjicu maalinka ay laabanayso. mathala wuxuu iri tasadaqtu haadihi daar calىa fulaan uu yiri fulaankii waa dhammaaday. laba shay bay noqonaysaa oo in la yiraahdo ninkaa lagu waqfay ninka dad ugu dhow hala gaarsiiyo. taas haddii la doono waxaa la dhihi lahay calىa aqrabi الnaasi biladii tusadiqa bihaa yowma tarjicu aa la dhihi lahay. hadda wuxuu iri yowma tasadaqa biha calىa yowma tarjicu marka waxa weeyaan ninkii sadaqaystay ninka dad ugu dhow yaa loo celinayaa. marka muxuu samaynayaa asaa u cayimaya cidda kaleo haddana lagu wareejinayo. macnaha tasarufkiisa u ninkii waqfay ma lahayn. ninkii lagu waqfay hadduu dhammaado ninkii waqafka maamulayay ninka ugu dhow baa maamulkii la siinaya. alley daartan dadkii lagu waqfay waa dhinteen aabbaha waqfayna waa dhintay adaa dad ugu dhoweey yaa la geey yaa waqafkan la siinaya asaa la weydiinaya. taasaa loo jeedaa. ayib horena waxaa noogu soo dhaaftay cagsigeedu ninka lagu sadaqaystay dadka ugu dhow yaa loo fiirinaana waana soo dhaaftay inay laba qowl tahay aa dhici karto. laakiin meeshan waxaa weeyaan alwaqfu yarjicu
إلى أقرب الناس للواقف. طيب وهي أوقافتي على ما شرط من الأثرة والتقدمة والتسوية من أهل الغنى والحاجة ومن إخراج من أخرج منها بصفة وردها إليه بصفة. tan waxa weeyaan ninka waqfayo cidou la doono iyo awsaafta u siiya un baa laga fiirinaya. bimacnaa ana alwaqfa yurjacu ilaa shardi alwaaqifi, ninka wax waqfaya loo fiirinaya. markaasuu wuxuu iri wahiya awqaaftii calaa maa sharada, ninka waaqifka wuxuu shardiyayaa lagu socodsiinaa ow min alatharati in la kala badsada ah. hadduu yidhaahdo ninkan owlaadiisaan ku waqfay, kow gabdhahana waxaan siiyey dicfay maa lilibni, gabdhihii baan ka badiyay hadduu yidhahdo athara waay, waa bannaan tahay siduu asiga yiri waay. kow wataqdima in la kala hormariyo, wuxuu iri waqaftu calىa fulaan wa fulaan, lakin alfulaan huwa aladii yantaficu bihi awala, faidaa maata yantaqilu alwaqfu ilaa man bacdahu. taqdimada taas waay. io wataswiya waqaftu hadihi اlarda calىa fulaan wa fulaan bisawiya baa tiri, labadooda waa waqfay wada isticmaalaya. oo min ahli اlghinaa wاlxaaja waxaad dhihi kartaa ninka waqaftu hadihi addaara calى ahli hadihi اlbalda alghaniyu walfaqiiru sawa, waa wada wadaagsanayaan. haddaad faqiir khasistid, haddaad hani khasistid, haddaad tiraa isla wadaagsanaan adigaa iska leh. wuxuu kalou leeyahay wahiya calىa maa sharada min ikhraaji man akhraja minhaa, ninka uu rabana waa ka bixi karaa, bisifatan oo ugu bixi karaa, io waradii ilayha inuu ku soo celiyana waa heli karaa bisifatin ku celi. wuxuu iri waqaftu hadihi اlarda calىa bani fulaan, waa wada leeyihin. min alfuqaraa baad ku qeyday, khalaas akniyada waa baxday. ayib ama waxaa tiri calىa bani fulaan min طalabati اlcilmi aa tiri, ayagaas waa gale sifaat aad markaa aad ku siisay. ama sifaad ugu bixi kartaa, waxaad leedahay waqaftu calىa hadihi daar calىa bani fulaan siwa alagniyaa aad tiri, agniyadii waad ka bixisay. almuhim ninkaad rabtona waa ka bixi kartaa, ninkaad rabtona waa soo geli kartaa, taasaa loo jeeda. ayib taas waxay ahayd waa waqafkii uu meeshaas uga baxay. lan noloshii lababa ma dhihino. wa minhaa waxaa kamid cadaayaadkii waxaa kamid fi lxayaati qeybtii labaad alhibaatu wasadaqaatu gayru lmuxaramaati. waxaan ihi labana waa xayaat, midna waa bacda almowt. labadii xayaadka midda labaad hibo waayo, qofkan wax u hibay waa sadaqo, waa sadaqa oo aan waqaf ahayn, wasadaqaat gayr lmuxaramaat aan waqaf ahayn waay. ayib walahu waxau leeyahay ibطaalu dalika inuu buriyo maa lam yaqbidha almutasadaqu calayhi, midka lagu sadaqaysa hadduusan qabdoonin, aw ilmawhuubatu lahu midka loo hibay hadduusan qabdoonin buuri. waxaa tiri beertaanaan bixiyey sadaqatan lilaahi calىa fulaan, fulaan intuu soo socdo ou beerta kaa qabdoona tiri waa ka noqday. waxaa tiri kitaabkaanaan fulaan u hadiyeeyey, intaadu kitaabkii la wareegina tiri waa ka noqday, waa kuu bannaan tahay. waqafkii waa ka duwan yahay, mar haddii waqfa tiraadid kuu soo laaban maayo. ayib marka hadiyada waxa weeyaan waa wax fiican. nebigu wuxuu uri walow uhdiya ilaya diraacun laqabiltu walow duciitu ilaa diraacin la ajabtu. sidaasuu tawaaduciisa nabiga caleyh salaatu wasalaam, tahaaduu taxabuna waa yiri. marka hadiyada iyo sadaqaadka kale waa macruuf oo laysu sameeyo waay. fa in qabadahaa ninkii lagu sadaqaystay hadduu qabdoodo, aw man yaquumu maqaamahu biamrihi, ninka waahibka ama mutasadiqa biamrkiisa, fa hiya lahu ninka qabdoodaa iskale.
mar haddaad wax hadiyeysid oo lagaa qabdoodo waa ka noqday ma anfays milki fii milki lghayr ay gashay xoolahaadi waa ka baxday nin kalea gooni u yeeshtay adiga waa kaa dhimatay waay wayaqbidu liطifli abuuhu awri haddii wiil yar wax lagu sadaqaysto wiilkaada yar baa nin wuxuu iri gurigan wiilkan yaraan siibuu nin yiri adigoo aabiisa waxaad leedahay waa u qabdooday miftaaxa igu soo wareeji liannahu asiga waa yaryahay nin majnuun ah ka mid ah waa qabdoonaya asiga qabdoomay waa loo qabdoonaya ninkii asiga arrintiisa gacanta ku hay naxala abubakrin caaishata jidaada 20 wasqan abubakrin sidiiqa gabadhiisa caaisha wuxuu siiyey 20 wasqi oo beertaa laga goynaya inay ka goosato siiyey marka ma ayna qabdoonin falamaa marida qaala wuxuu iri wadidtu waxaan jeclaaday annaki qabadtiihi inaad hore aad u qabdooto aan jeclaan lahay wa huwa alyowma maalu lwaarithi waay maadaama aadan qabdoonin xoolahayguu ka mid yahay anigana hadda waa dhintow haayaa dhaxal buu noqonayaa haddaad qabdoo laheed adaa gaar u yeesha lahay masaladan waa noo imaan doontaa tafsiilkeeda waalidkii ma leeyahay caruurtiisa inuu kala badiyo inuu wax kala siiyo noloshiisa ayb wa minhaa bacda alwafaati alwasaaya walahu ibطaaluhaa maa lam yamut waa imaan doontaa waxaan oo dhan wa minhaa min alcaطaaya waxaa ka mid ah bacda alwafaati alwasaaya qofaa wuxuu leeyahay xoolahan waxaan u dardaarmay haddaa dhinta fulaan in la siiyo walahu ibطaaluhaa wasiyadii waa buri karaa maa lam yamut hadduusan dhimanin mar hadduu dhinto tataxawal ilaa milki fulaan kitaabu lwasiya noo imaan doono oo lagu faahfaahin doonaa iyo cadiyada inteeda kaleba waa imaan doontaa wallahu aclam salى اllahu waslama calى nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin.